السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيان أكاديمية أقوم كافي أونلاين إديوكيشن وحيدي سكرسي كورس فرية بلاش أم بالعقلانة وكل بمجيء تغنو أو لغو برندونو أبليكيشن كا أدوبي فوتوشوب. هذا بقى محوي هي أبليكيشن كا أدوبي فوتوشوب. أبليكيشن كا أدوبي فوتوشوب وأبليكيشن كا لغو سميو إن صوران تلغو قرحيو in graphics ka lagu sameeyo in designada borderka billboardska brochure-ka business-ka visual image design-ka dhammaan inta nashqadi leedahay ee nashqadaha yar ee kooban oo dhan design-ka meesha lagu sameeyo. Haddaba application-kan Adobe Photoshop waxa soo saarta shirkadda Adobe Creative Cloud waxaanu ka mid yahay application-ada faraha badan leh ee ay soo sameyso kaasoo loogu talagalay isaga inuu kaliya taanba khaas u yahay in sawiraanta qaabayntooda graphics-ka iyo design-kaba lagu hagaajiyo. nashqadan haddaba uu application-kani qabto iyo qaabka loogu shaqeeyo ee sawir hagaajintiisa iyo sidoo kalena billboard-ka amba board-ka sida loogu design gareeyo cilmigaas oo dhan waxaynu ku baran doonaa course-keenan maanta ay ku soo kordhisay akademiyada aqoon kaafi. course-kan oo laga magac baxay Basics of Adobe Photoshop CC. haddaba saaxiib bayan waxaad sugaysaan maantaba kobciya cilmiga iyo aqoonta aad u leedahay application-kan Adobe Photoshop adigoo ka faa'iideysanaya course-kan free-ga ee ay ku soo kordhisay akademiyada aqoon kaafi online education. si aad iska diiwaan geliso waxa laga rabaa 3 shuruudood oo kaliya ta inaad soo buuxiso. qodobka koowaad waxa weeyaan inaad muuqaalkan baraha bulshada aad ku share gareyso hadday tahay YouTube iyo hadday tahay Facebook-gaba. Facebook page-ka ayaad geli doontaa aqoon kaafi marka waxaad sameyn doontaa muuqaalka lagu sharaxayo course-kan ayaad share gareyn doontaa. sidoo kale Facebook page-ka ayaad like siin doontaa amba like gareyn doontaa. xagga kalena YouTube channel-ka aqoon kaafi amba YouTube-kaaga ayaad ku qori doontaa aqoon kaafi. marka uu ku soo baxo YouTube channel-ku waxaad share gareyn doontaa muuqaalka lagu sharaxayo course-kan Basics of Adobe Photoshop CC. markaad share gareyso waxaad ku share gareyn doontaa barta WhatsApp-ka si ay dad fara badan ay u arkaan. ugu yaraana waxa laga rabaa inay arkaan 2 qof. sidoo kale waxaad siin doontaa subscribe. kadib markaad buuxisay labada shuruudoodba waxaad sameyn doontaa inaad abka aqoon kaafi kala soo degto Play Store-ka mobile-kaaga adigoo ku qoraya ereyga aqoon kaafi. markuu ku soo baxo magaca iyo sumadda amba astaantii aqoon kaafi waxaad dooran doontaa install oo waad soo dejisan doontaa. markaad soo dejisatana waad soo furi doontaa. marka uu ku soo baxo application-kii aqoon kaafi oo shaashadan hortaada kaaga muuqata ay ku soo baxdo waxaad dooran doontaa icon-ka yar ee 3 dhibcooda amba 3 line ee hareerta sare kaaga muuqda. waxaad ka sii dhex dooran doontaa khaanada courses oo ay ku jiraan dhammaan maadooyinkii hadda diyaarka ahaa. markaad courses doorato ee ayna ku soo baxdo waxaad ka dhex xulan doontaa course-ka ay magaciisa ku qoran tahay Basics of Adobe Photoshop CC. sawirkiisuna oo caynkan halkan nooga muuqdo kale uu yahay. markaad course-ka ka dhex doorato hoos ayaad wadi doontaa ilaa intaad ka helayso meesha cagaarka ee ay ku qoran tahay iska diiwaan geli amba akhtarka. markaad meesha hesho ee aad doorato waxa ku soo bixi doona form-kan horteena inooga muuqda. haddaba form-kani markuu ku soo baxo waxaad xagga ugu horeysa geli doontaa email address-kaagi. haddii aanad email lahayn amba Gmail waxaad gelin doontaa magacaaga oo username u samaysay. tusaale kale Musa magacaygu Musuha laakiin waxaan geliyay musa23@aqoonkafi.com. xagga ku hooseysa waxaad ku qori doontaa password cusub oo aad samaysan doonto. xagga ku sii xigtana password-kii cusba ee isla hadda aad gelisay ayaad mar labaad ku celin doontaa amba aad ku xaqiijin doontaa. xagga ugu ka sii hooseysa waxaad gelin doontaa magacaaga. xagga ku sii xigta ee ay ku qorantay last name-na magacaaga magaca aabaha iyo magaca awowga ayaad wada gelin doontaa. xagga ugu hooseysa waxaad ku qori doontaa amba laguba qorayaa number-kaaga gacanta amba telefoonkaaga. kadibna waxaad dooran doontaa barta ugu hooseysa ee cagaarka ah ee ay ku qoran tahay enroll now. marka doorato enroll now
waxa uu si toos ah ku dhexgeyn doonaa shaashadan hortaada kaaga muuqata waxaanu kuu soo diri doonaa oo kuu soo hordhigi doonaa fariin cadeynaysa in aad kooraska iska diiwaan gelisay hoos ayaad wadi doontaa ilaa intaad ka helayso meesha ay ku qoran tahay get start oo ah inaad bilowdo oo hesho casharkii ugu horeysay marka doorato get start waxa kuu soo bixi doona casharkii ugu horeysay ee kooraskan aad ka soo diiwaan gelisay basics of Adobe Photoshop CC hadda markuu ku soo baxo casharku waana dejisan kartaa waana ku dhex daawan kartaa gudaha application-ka haddii aad doonayso inaad dejisatana waxaad isticmaali doontaa computer haddaba markaad casharkii dhamaysato waxaad dooran doontaa barta ka hooseysa ee ku qoran tahay Mar Complete haddaba ha moogaan hana ka maqnaan aqoon kaafi online education kooraskani intuu socdana waxay idin soo tabin doonaa aniga oo Axmed Cabdi Maxamed ah hadduu Allah awood leh inoo ogolaado dhammaanteynba